ma fahanteen marka waxa laga hadlaayana waa issue weeyaan issue waxa laga hadlayaa war maxaa inoo dan ah caafimaadka caruurta waxa laga hadlayaa mataqaanaa nolosha waxyaalo badan oo community-ga iyo maaragtay iyo gobolka u dan ah laga hadlayaa and this is how you involve siyaasadda waddanka ka jirto as a qof shacaba. This is how you involve. This is your first. Then hadhowna mataqaanaa if you are a citizen waxaa lagu sii fududeynaya inaad dadka kalena caawiso diiwaan geliso oo mataqaanaa aad volunteer sameyso adigana aad vote gareyso insha Allah. mid baan ku diray Idrisow horta dadku waxaa fiican in ay ka war helaan faa'iidada ay leedahay qofku inuu xaafadiisa cod ku yeesho iyo muuqashaba. tusaalaan idin siinaya moolka weyn ee 24ka Soomaalida Minnesota ku yaala markii la aasaasayay caddaan badan oo xaafada ku yaalay baa ku kacay. masaajid weyn baa ku yaalay waxay soo sawireen masaajidka oo jumco lagu tukanayo ay yiraahdeen meeshan 1500 qof baa timaaday xaafadan residential parking malaha kadish halkan ay ka dhacdo 100 qof baa timaaday xaafadan residential. Come on guys. Speaker baa igu soo noqday. marka xaafad walbaaba waxaa jira neighborhood organization ay dowladdu lacag siiso oo maareeya. For example kale haddaad guri haddaad iibsatid boos oo aad tiraahdo boos kan daar waxaan ka dhisayaa 8 dabaq ah in Minnesota waxaa lagu oranayaa 100 guri xaafadda guri booskaas ku hareeraysan waa inaad ka haysataa support. inta badan caddaan baa xaafaddaas lacagta ku qaadan jiray Ventura Village baa la yidhaahdaa. meetingkii baa maalintii dambe la igu yeedhay niman dhalinyaro moolka ka shaqaynayay waxay yidhahdeen niman caddaan nagu kaale naga caawi geli kartaan oo waxbaad ka ansixin kartaan meeshan in mool laga dhigayo in kale. deetana waxay yidhaahdeen meetingkii waxaanu kaga soo qayb galnay Soomaali fara badan. caddaan keliya awl haysan jiray meel kiniisada bay ahayd meesha ku shiraanba. deetana waxay yidhaahdeen no waxaa xaafadda codayn kara keliya qofkii guri ku leh. xeer hoosaadkii siriga u degnaa baan soo saaray waxaan ku yidhi kaale sheega waa kas kitaabiin baa tihiin qof kasta oo xaafadda degan ama business ku leh ayaa ka codayn kara. anigu hadda kama hadlayo caucus waxaan ka hadlayaa neighborhood issues. ilaahay wuxuu qadaray aaga guryo badan oo dhaadheer oo Soomaalidu degan intaa ku jirta guriyii intaan saf ka marnay Soomaali wixii joogay dhan aan u yeedhnay oon niri ID-giina hadduu ku qoran yahay khayr haddii kalena warqad magaca ku qoran yahay keen. booliis bay u yeedheen wallaahi alcadiim waan wayse qabaa been idiin sheegi maaye intaanu nimi ayaa iyagu jooga ayaanu chairmankii xaafadda bedelnay oo meetingkii dhan aanu la wareegnay oo aanu miidiyaha u yeedhnay. dadku markay yimaadaan yacnaha codkoodana mideeyaan awood bay leeyihiin. marka qofku inuu fahmo xaafadaada haddaad ka tahay yacnaha meesha Soomaalida ba tira meesha ama ka muuqo ama ka maqnow xaafadaada iyo decisionka la gaarayo iyo meesha lagu shiray adiga ku saameynaysa haddaadan aqoonin waa dhibaato. qofka hadduu meesha temporary degan yahay waa meeshiisa laakiin Soomaalida meeshii guryaanu ka iibsanay waynu degannahay businessyaynu ku leenahay haddana inta badan decision makers kama nihin. marka waxaan ka hadlayaa qofkii iska caytamay waa meeshiisa. The guy who's saying go back home, this is our home dude, get used to it. inta badan aaganaan idinkala hadlaya xaafadda waagaa wixii ka bilaabma qofka laga soo doorto consulka Soomaali weeye. degmada qofka laga soo doortaa ee gobolka Minnesota ka ah senator iyo state representative waa Soomaali. federaalkana gabadha laga soo doortaa Ilhaan Cumar waa Soomaali. marka inta masaajidkan intaana lagu xumayn ka hor aniga xitaa maba aan aqoonin ba neighborhoodka iyo nidaamka uu leeyahay iyo see u shaqaysay iyo waxba kama aanan aqoonin. markaas aanu barannay aanu dareennay inayna saameynayso leanna meeshan wax ku caabudanay haddiina loo diidayaba dhibkeeday leedahay.
soomaali badan baa hadda waxaa ka warhaysaa gobollo kaloo badan oo sida Texas ay ka mid tahayna way ka warhayaan baan u malaynaya hadda Lakefield meel baa la rabay in weyn ay bulshadeena dad ka mid ay gateen ay doonayaan masaajid weyn iyo guryo inay ka dhisaan waa lagu kacay the more xubnaha aagaa degan ay codeeyeenna the more decisionkaas citygaasi ay gaarayso ama waxaa kaloo jira city walbaaba waxay leedahay xafiisyo zoning and planning committees ama departments baa jira zoningkaas sharcigeeda xitaa wax ka bedeli kara dadka xaafadda degan shirarkooda inta kasoo qayb gala majoritygood hadday wax u codeeyaan city ordinance wax ka bedeli karaysa marka walaalayaal waxaan idinku baraarujinayaa in yacnaha aad barataan ood ka warhaysaan xaafadihiina iyo shirarka lagu qabto iyo kuwa idin saameynaya calal aqal kuwa aan idin saameynayn ha tegina laakiin kuwa dadkiina iyo bulshadiina iyo sumcadiina saameynaya qayb ka qaat ana ka baxay okay ayay ku soo cunugayga maxay ka fikrayaan cunugayga wuu yar yahay maxaan ka dareemayaa inuu ordaayo inuu ilmaha la mid ahayn waxa ka dareemaya waana fiican yahay gabadho maxay dhahaysaa cunugayga waa aqli badan yahay wax badan uu fahmaya wax badan bad wax kale ilmaha ka duwan uu yahay marka iskuulka su'aalo iga soo weydiiyay saas inay dhahdaan moodaay dhakhtarkii way ka cabsanayeen iskuulkiina way ka cabsanayeen marka waalidkaas cabsanaya maxaa kula talin lahaydeen inagoo raalli ani qofkii ma ihi wax badan ma ka jawaabi kar laakiin had waa u sheergareeyey meeqalta jira abaa ilmaha 4 sano maa laygu dhaha iskuul ma aadaan waa wiil iskuul ma aadaa pre-k waa u malayaa cunug hadlaya miyaa mise waa cunug non verbal hadal dhan lahayn wuu hadlaa wuuna aqli badan yahay labadaasaa laygu dhaha maasha allah marka maxay ku aragtay ciladaas maxay ku aragtay like what kind of stuff maxay ku aragtay waxay dhahday hadalkiisu aad u badan yahay wuuna socod badan yahay wax walba wuu badan yahay صح marka abay waxaa jirta laba shay ee dadka isku confuse ka qaadaan waxa la dhahaa jirta ADHD magacaasay ii sheegtay iyada laftigeeda aqoon oo ma laha qofka ii sheegayay laakiin maybe Soomaalidu waxbay soo dhageystaan macallin ay iska soo noqdaan marka ADHD waxa attention deficit disorder like cunugi hadda ka soo qaad cunugi ilmihi kale like uu ka aqli badan yahay wax walba uu fahmaya uu sheekeynaa wax walba uu sameynaa laakiin marka aad sug ma sugaayo ado haleyso ma aragtay hadda qof la haleyso uu hada hooy sug ma sugaayo handeen wixii hadda ku dhada samee hayu ku dhimas uu iloowa ma sameeyna ma fahantay fadhiisiga ma fadhiisana waa hyper maanta dhan in meel ka baboodaan ma fahantay waxaas waxa waa ADHD-ga symptoms-kaas leh dadka qaar waxaa lagu dhahaa ilmaha barnaamijkaas inaan ka hadla marin laakiin hadda waxaa talo ku siin lahaa like ADHD-ga haddii ilmaha takhtarka iskuulada waxaa arkaysaa ilmaha la dhahayo daawooyin sii ilmaha saan sii waxaas ma anfacdo you know cunugii daawo haddii la siiyo daawada ilmihii way dejinaysaa ilmo badan arka ani daawo la siiyo ADHD leh daawada markii la siiyo ilmihii way dejinaysaa laakiin waxay keenaysaa problem kale keenaysaa side effect badan ay leedahay daawooyinka waxaa la sameeyaa ilmaha diet la geliyaa diet loogu talagalaa jirta cunuga markuu ADHD leeyahay diet oo wax qaar ah ka ilaalinaysaa jirta oo cunugan dejinaysa ma fahantay ma arki laakiin arano magac kale inuu watay maasanta qofka ku xiga ee ku saabsan topiga su'aal hadaa qabto السلام عليكم salaam أباي فرحيو waxaan rabay inaan ku weydiiyo ana cunugayga marka inta imaaday wadanka waa ku cusbahay isagoo yaraa keenay markii hore xagga jooga wuu hadli jiray wuu fiicnaa
talaaladan oo la sheegayo oo la dhahayo talaalkaas haddii ilmaha la siiyo cudurkaasaa ku dhaca marka aniga waxaan u malaynaya America le meeshaas inay waxaas jiraan talaalka laakiin cunugeyga waxaa laga soo siiyey wadankii aan joogay 2 talaalo soo qaatay marka inta imaaday cunug fiican u ahaa marka xagga joogay marka inta imaaday waxaan ku arkay cillado badan cunugii iska cararayo dariishada intuu ka boodo oo banaanka iska aadayo fiirinaynin waxaasoo dhan markaan dhakhtarka u sheegay maya intaanan horta aan waxaas ku arkin waxaan dhakhtarka ku dhahay talaalkaas yaan layga siinin marka dhakhtarada igu tiri talaaladaasuu qabaabo oo cunuga waa la soo siiyey Afrika laga soo siiyey labaana la soo siiyey waqti isku dhawaana la siiyey noo qariyaan talaalada marka talaalka anu la iima sheegin laakiin anigu cudurka waxaan u malaynaa America la inuu yaalo Afrika inuu yaalo ma u malayn talaalkan inuu Afrika yaalo marka wuuna yaraa markaas hadal muuna gaarin adii 2 sano meelahaas camal uu jiray wuu hadlayay laakiin yacni hadalkiis markaas wuu fiicnaa laakiin inta markaa keenay cunugii ma hadlaynin eye contactigaas ma laha magaciisa haddaa ugu maanta dhamme ila hadlaayo waxyaalo badanaa ku arkay marka ma talaalkaasaa keenay mise waxaan waa wax oo iska imaan karo halkaana kuma dhalan 6 sano jira Soomaa hada 3 sano iyo wuxuu jiraa horta wadankeeni ma ogtahay waa wadan oo cuntada caafimaad leh samoogid organic ku dhageysana haye cuntooyinka wadankeeni cunto caafimaad leh ma ogtahay oo wadan hawo fresh leh oo dadka vitamin u baahneen vitamin D hata ma qaadan jirin wadameen markaan joogno wadanka ogtahay qoraxay lahayd marka inta markii la imaade talaalkan hadda oo ilmaha la talaalayo aniga ahaan farxiyo aaminsanahay inay talaalada waxaan keenaan because talaaladan waxa laga sameeyay naftooda ma aragtay jirkeena ma xamili karo waxa arkaysaa hadda 10 qof waxa talaal la siiyay 10 qof waxa laga yaabaa inay isku mid u saameeyeen 2 qof caadi noqdaan 8 ka xanuunsadaan maybe 6 xanuunsadaan maybe 4 xanuunsadaan ka soo qaata 10 qof 4 caadi noqdaan marka waxa ka wada like dadka jirka isku mid ma bilaadanka ilmaha yar markii talaalka la siiyana wadankana la keenay wadankan waa ogtahay cuntada mostly organic ma aha laba hawadeeda fresh ma aha badi waxa ku jira marna winter marna summer hawadii ma aragto waa dareemi kartaa marna waa hatta summerka naftiisa la leeyahay qoraxda iska ilaali meeshan marka talaalka ka laga soo siiyay aroontiina saameyn u keentay inta keentay environment ku dhalina keentay talaalna ma siisaaba marka inta keentay inta marka keenay talaalada dhan waa la siiyay intii kale u dhimaneed marka hadda wiilkaada wiil yar waay waxa sameyn karta way jiraan oo detox la dhaho jirkiisa ka nadiifin karto talaalada hadda talaal asiinaysan hadda ka jooji hadda laga bilaabo Minnesota hadda degantane Minnesota is one of the exempted state oo lagu qasbeenin waaye inaad talaal ilmaha talaalin haddii ay iskuul hataa aadaan warqad la buuxiyaa jirta iskuulada ku siinaan exemption form la dhaho oo buuxinayso ma fahantid oo exempted marka maxaa rabaa ku dhageysanaya macaanto marka iskuulada hata ilmaha ku gaareen ma aragtay talaalada siinin talaal dhan ilmo dambe ha siin maanta laga bilaabo haddii aka waloleysaa dhayso ilmihii waa waxba ay ugu dhici karaa wax kuuma dhaca ilaahay kuuma keeno gobolka Minnesota hadda degan tahay state-ka Minnesota talaalada must ma ina qaadato exempted waxa la jirtaa 50 state-ka state-yaal qaar jiraan oo must looga dhigay cunugii hadduu iskuul aadayo waa must inuu talaal qaato marka inta aad Minnesota hadda degan tahay talaalka must ma aha hadduu cunug iskuul ku aaday hadduu ku aadeeninbo talaaladaas hadda anaga waxaan nahay dadka cusub aan nahay oo qaxootiga cusub ah waxaana lagu qasbayaa qasab yacni maba ahan badanteena waaye inaa green card inaa xareysano marka waa masti inaad talaalkii qaadatid asaga talaalaa ka dhimanaa xitaa waa lasoo celiyay talaaladiyaa la siiyey ilmihii kaleeto wixii ka dhimanaa kurti talaalkaas isagoo kaa dhiman yahay meesha ma tegaysid meesha oo green cardka ma lagu buuxinayo marka taas waa ku qasbanahay inaan talaalkii qaadano maya dadka waaweyn waa oga laakiin ilmaha ma lagu qasbaa waxa iyagana waa la igu soo celiyay waxaa la dhahay iyagana waa inay talaalkooda soo qaataan intii ka dhimaneed kurti waa lasoo tabo waa la wada talaalay anagoo xagga Afrika hadda dhow ka imaanay oo talaalo badan lagu soo siiyay oo inta markaa imaanay nala talaalay wuxuu ahaa aanan fahansaneen
oo de ani labadaas cirbadaas ka cabsanay tiina marba hadii xag laga soo talaalay inta waxa la igu dhaay ma lagaaga talaalay talaalo kale laakiin socday oo la talaalayay oo marka tii maxay aheeto green cardkiina waa qasab la yiraahdaa in cunugii uu talaalkiisii ay ilmaha u buuxsamaan marka ma deyn karno waan ku qasbanahay ما meeqsan u jira 6 sano adi 4 sano xira kaga dhiman 4 sano okay saan u fahmay talaalada horta aniga